تحفظني بآيات من القرآن. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. هي الحلقات تملأني بحب المصطفى. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن تملأني بحب. هي الحلقات تحفظني بآيات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى مرة وحنا ولا وضع محاضرة قبل أن نوصل إلى وعنوان كيف موقف المسلم من الفتن. روح مسلم موقف الروين وقاطع مريض تطبيق معه. وحصل مني فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوليد فليتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن شاء الله تعالى سيدا عنوانك لغو الشيخي وحين كهذا دونا قفك مؤمنك iyo mowqifkiisa uu laga rabo inuu ka qaato ama uu ka yeesho fitnooyinka adduunka ka dhacaya. marka fitnada ayaynu taabanaynaa kolka hore iyo anwaacdeediyo uma bacda dalika qofka iyo mawaaqifta laga rabo ayaynu insha Allah taala ku soo xiri doonaa billahi taala. fitnadu nafcalabiga markii la yiraahdo luqada carabiga la yiraahdo waa امتحان ليس امتحانه ابتلاء ليس ابتلاء اختبار روح على اختباره ويان وجربتان ليس جربايو ادونك هنا جرب كاسا الهي سبحانه وتعالى ugu talagalay oo maarda maxay daartan waxa la inoo keenay in la inagu imtixaamo oo la inagu jirrabo liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina inuu ninka maarda halaag sameeyna isagoo og wuxuu ku halaagsamay oo garanaya oo wadadeeda raacay inuu ku halaagsamo kii xaqa raacayna uu maartay xaqa iyo wanaaga uu ku noolaado. ilaahay baa wuxuu leeyahay wala nabluwannakum hatta na'lama almujaahidiina minkum was-saabiriin. waanu idin imtixaamayna ilaa aanu ogaano kuwa jihaadka galay jihaadkaasi ama jihaadkii bilyad ha noqdo أما جهاد بالنفس هالنقضاء أما جهاد باليد هالنقضاء أما بجهاد باللسان هالنقضاء بس سوء النقضاء هالنقضاء الشخص وإنه نفتي سل الجهاد ومجاهدة السمايو أيابا وحوينه إيا قوة صبر إلهي أقاده آيات فربان با امتحان كاس يا مارد محايا هيدي يا كتشروي وإلهي كقاه الله إلهي وحولي ألف الله من محاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ضدكم ما وحي ملايين inay dhahan aamanna ilaahay baan rumaynay dabeedna uu laga tago iyagoo aan la imtixaamin oo la jirrabin oo la ogaanin oo ka sabrahaya iyo kaan sabraynin ka diintiisa ku dhagan ee qabsanaya iyo ka diintiisa maarda maxay ahayd ay la fududahay ee diinta dan ka galaynin ee adduunku la wan yahay ila ilaahay subhanahu wa ta'ala cadeeyay wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني آيات كاسولن وحكاها الله يان إن ليس امتحانها أو ليس جربها مركا فتنة وحا وامتحان واختبار وهي عربت وحي لهان فتنت الذهب كأيان دلاليي marka oo markii dabka intii lagu shido oo laga saaro maarda maxay kii waxyaabaha xun iyo qashinka iyo dhoobada iyo waxa laga saaro si uu soo baxo dahabkan hadda haweenka xidhan yihiin iska si maarda cadcad ee guduudan ee quruxda badan muusan ahayn kolka hore dhoobo iyo dhagxaan is saaran buu ahaa kadib dab baa lagu shiday markaas dahabkiina gooni u baxaya qashinkii iyo wixii maarda maxay dhooba iyo dhagax ahaana dhinac uu duulahaya marka taas ay carabtu asalaan ka soo qaatay baa leeyahay saas oo kale ayaa diinta iyo adduunka la isku ikhtibaaraya maarda maxay ahayd ilaahay wuxuu leeyahay laqad khalaqna al-insana fi kabad imtixaan iyo dhib baan ku abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay marka fitnadu nooca ikhtibaarka weeye
wax kasta oo la necab yahay weeye ama aakhirkiisu waxa la necab yahay maarta noqonaya kufrigu waa maarta maxay waa fitna weeye dambigu waa fitna weeye inxiraafka oo ruuxu xaq ka leexda waa fitna weeye inuu ruuxu fadeexadoobo waa fitna weeye inuu fujuur iyo fisqi galo oo uu maarta maxay ahayd xumaan u galo fitna weeye waxyaabahaas oo dhan ayaa maarta maxay ahayd fitna dadka ayaa u kala miirmahaya marka in wanaagsan iyo in xun bay u kala fiirmahayaan noocaas oo kaleeto ayay maarta maxay ahayday ayay noqotaa axaadiis fara badan ayaa ku soo arooray maarta maxay ahayd fitnada iyo ka hadalkeeda Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hadith Bukhari iyo Muslim ku sugan wuxuu leeyahay yaa saxaabada ayuu weydiinay waqtigiisii ayuu weydiiyay yaa rasuulka ka maqlay fitnada maarta maxay ahayd yaa ka maqlay buu isagoo sheegaya saxaabadii baa yiri maarta maxay ahayd waanu maqlay markaas wuxuu yiri waxa laga yaabaa inaad ka wadaan fitnada uu qofku ku fidnoobo ahalkiisa iyo jaarkiisa iyo taa uu ku fidnoobo yaa laga yaabaa inaad ka wadaan ha taas ay dhaheen wuxuu taas maarta maxay ahayd waxa lagu dhaafaa salaada iyo soomka iyo sadaqada walaakiin midaan in weydiinay waxa weeyaan buu yiri fitnada sida maarta mawjadaha badda ta u mawjaysa ee u hirta ee isugu maarta mutalaadimkaas dhex gasha fitnadaas aan maarta idin weydiinayaa buu Xudayfa ibn al-Wal aamusay Xudayfa ibn al-Yaman baa wuxuu yiri aniga ayaa maarta garanay anaa ka maqlay buu yiri markaasuu yiri adiga weeyaan ninka ka maqlay bal sheeg buu yiri maarta maxay ahayday lillahi abuk markaas wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam qulubta dadka ayaa fitanta loo bandhigi sida maarta dabka maarta maxay loogu tuuro xaabada maarta qori qalbi kasto oo marka cabba oo fitanta dhama waxa lagu dhibic baa ku dhacda buu dhibic ayaa ku dhacda soo dhibicdaas ugu dhacaysa iyo wuxuu noqon buuri qalbi madow buu noqonaya qalbigi inkirana waxa ku dhacaysa dhibic cad baa ku dhacaysa fitanta qalbigi inkira dhibic cad ayaa ku dhacaysa markaas ay laba qalbi ay noqonayaan qalbi madow oo maardi mirbaadan buu leeyahay يعني مارد محاي سيده دمبسكو كلا نقضي ايو نقونيا او مارد محاي سيده كالكوزي مجخيا سيده مارد محاي هيدا اشون لغديو افكا لا ساري اشون هدي لغديو او هوس افكيسا laga dhigo oo dabadiisa kor loo taago de afki wax ka gali lahay waxba gali maayo marka kaas waxa weeye wax khayr oo gali ma jiro wuxuu yaqaana kaliyata sharka ayu cabba sharka iyo xumaanta ayu cabahaya قلبنا وقلب عد او ناسع البياضه او وناغسن markaas maarad maxay fitantu iyo maarad xumaantu ayna dhibaynin inta uu nool yahay labadan nooc ay kala noqonayaan kan madoobaaday ee sida ashuunka loo gadiyay wax khayraha uu ogol yahay ma bajiraba khayro dhan uu ka soo horjeedaa kaliyeeta wuxuu yaqaanaa wixii maarad maxay isaga ku dhacay ee xumaanaha wixii xumaanaha uu cabay ama gaalnimo han noqoto ama fisqi han noqoto ama xumaan kale han noqoto waxaas uu yaqaanaa buu leeyahay waxa kale oo ka sugan rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis Abu Musa al-Ash'ari oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna bayna yaday saa'ati fitanan saacada qiyaamada koor waxa jira buu yiri fitnooyin ka qid'i al-layl al-mudlim habeenka mugdigiisa kaleeta habeen madoobaaday oo kaleeta seebay noqonaysaa يصبح الرجل فيها مؤمنا قفك وحوا بريسان هيا isagoo mu'min oo ilaahay yaqaano ilaahay rumaysan wayumsi kaafiran qalbu maarad asarkiina qalbu noqonaya asarkii markuu galabaysto qalbu noqonaya wayumsi mu'minan waxa laga inuu mu'minimo ku galabaysto oo aroortiina wayusbihu kaafiran oo maarad maxay ahayday uu noqdo aroortii gaal noqdo way القاعد كفديا فيها دحده كفريستا يا خير من القائمين كتاغن كخير بدن بول هاي كتاغن ان او بنبخدو او harka laga yaaba والماشي كسعود ايا خير من الساعي كدح اردهيا waxa ka roon kamaar tartiib u socda ayaa u socda markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam fakasiru fi qisiyakum waxa jabisaan bu qaansooyinkiina jabiya waqaddu awtarakum harkaha qaansada ku xidhana gooya واضربوا سيوفكم بالحجارة سيفيهن وحال لا دعدان دغخ لا دعابول فلا لا دعابول فإن دخل
هدو قالوا أحد منكم قفل كمذا هدو قالوا فليكن هذا كخيري ابني آدم لبدي الماء آدم هكيس خايبنا حديث كإمام مسلم يا أحمد يا أبو داود يا وريني ربنا وحولي هاي الماء آدم كود خير كبنا واكه والله بدي الماء آدم يسقب صديق قصة سورة المائدة إلهي وكجاه الله محيي إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار كاسو كلا كيل الدليل أو كلا نقضه أنت واحد يشد أو واحد ليسد أو مارت مصيبة جشد أنت نقول الله هيد كخير كبدن اللي الدليل كبد بعد فتنة النقض أبو هريرة وحي رسولك ورني صلى الله عليه وسلم رسولك لا تقوم الساعة ساعة مرة عيسو حتى يفيض العلم إلى علم أوبته وتكثر الزلازل أي بطان مارد محايا هيدي بالقريرة زمن كنا يسوع دوادو فتنوين كنا أيضا باهران دل كنا أو فربطه مال كنا دحدينا أو فربطه مال كنا دحدينا أو فربطه أيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان من البخاري ووريني marka maalka faraha badan laftigiisa dadku waxa laga yaabaa inay u qaataan inuu khayr yahay laakiin maalku markuu farabato shar fara badan buu wata laftigiisu cidi ilaahay ka badbaadiyo baa ka badbaadaysa maalku wuxuu keenaa kibir buu keenaa macaasi fara badan buu keenaa isla weyni buu keenaa ruuxu inuu dadkii u yaqaanay ka carabo buu keenaa inuu zina iyo xumaan raadsado keenaa inuu musiibooyin fara badan u gala ayuu keenaa maalka hadii uu wanaagsanaado waa sax لكن مالك دبكي سافر بدن أنا سحولي رسولك ورني صلى الله عليه وسلم على مدى الساعة وحكم ذبولي إن علمك الله قاضه جهلنا أو فربطه زندنا أي فافته خمر دنا اللعبه رجنا أو تجا أو دينتو أو دينتان أو رج معناها أو يراذوي هوانكم أي صهران حتى يكون ل50 امرأة كنتم كينا غضبة قيم واحد هل أصارح دعوه كنتم كينا غضبة هل أصارح دعوه حديث وحديث متفق عليه إمام أحمد الترمذي نسائي ابن ماجه ويورينا حديث صحيح على مدى الساعات كم التاي علمك أيا يرانا يولا كرقا هيا ولي هذا وقت إن هذا علم وبنيه لكن كو عمل يركب يا ير هذا جهل ومركه هذا علمي فربطه كتبها لا ضابعه way badan yihiin madaabic intaas kutub ay soo saarta laakiin yaa ku amal fala yaa ka warhaya waxaaba yarba xataa mushkilada joogta ninkii cilmiga lahaa ee shaygan waa xaraam yaqaanay inuu sanu aabayeelin waxaad ogtiin marka hadaan loo aabayeelin nooc jahli noqonaysa waxaad ogtiin inay zinadu badatay زندو إني بدرتي أو أدون كمسلمين تهدا وحيابها الله ياب كلا ودمتات مسلمين إن بوي فرين جيل فرين لقى يقانو مشاكل كثيرة كمتها مشاكل كثيرة أيه كمتها خمرنا هذا الشيء بقى شيء عادي على قدك من مصائب الدنيا بكمتها مربطي رجع وطن كسو أفريقيا ده شوفنا حسلاه مركي لقياسه إني هوينكم بديهين يعني سلاه سومالي ولي ويرون ده وعن سلاه ولي رجع فربضان أو رجع وين قويسود للترين لكن مع أنه أي دجال فربضان يا مصيبة فربضان أو رجع دلية أو كل ما نيان أي تيران لكن هذا هو حاسله مركان بالماذا ذكر هيرها مركي الله فيريو وحاسله حاجة ويسكت له ما نسله لكن وضمان قاركود مثال هو ده الماليزي اللي هذا المارد محيبر يشوك ترى وحوي وحواجة آخره وقبل 20 سنة لبيا 20 سنة كوربه ودن كاس waxa la sheegi jiray waqtiga isaga halkii ninba 7 naagood inay ku soo aadayso halkii ninba 7 naagood inay ku soo aadayso marka waa min calaamad saaci ka mid tahay markay sidaas dhacdo fitanta fara badanayso marka xadiiska fitanta ku soo arooray way fara badan yihiin in dilku uu fara badan buu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam musiibooyinkaasna ومارد مصائب تجي في تنتهي كذا كم تاي وحمارد رسولك وتلمامي وحديث مارد دير وهذا مارد معي أنت أبوه استسان كسوق قاضنا وحليه حتى يكثر فيكم المال إلى أمالك بطو وفيفيض مالك وشمسدي بيها فيضاه وحل بيها وبيجي بتاعه يا وبيجي بنشبه
ayaa la yidhahdaa maarata fayadaan la yidhahdaa saasoo kale u banjabaan ilaa uu ninku uu maarata ruuxa maalka lihi uu la murugoodo uu ka murugoodo yaa zakadaada kaa qaadanaya وحتى يتضاول الناس في البنيان برسول الله صلى الله عليه وسلم dadku ilaahay ku tartamaan guryaha dheerkooda ana ka guri dheer iyo ana ka guri dheer lagu tartamo waxaan u maleynayaa meel far badan adduun kamid waliba khaasatan fi bilaad muslimiin in tartankaas uu ka jira adogtii maan aaminsana fitnooyinka marka waa laba nooc fitnooyinka dadka ku dhaca waa laba nooc waxa fitna leeyahay fitnatu shubahaat baa la yiraahdaa fitnatu shubahaat وانا فتنة ugu daran ee xagga diinta ka saaritaanka dadka ku tacalluqda way waxay fitnada shubahaadkiihi waxay maartay ay la xiriirida xagga aqliga iyo quluubta diinta oo laga shakiyo shirki lagu dhaco bidcooyin lagu dhaco waxyaabahaas ay keenta ruuxi waxa weey diinta buu ka shaki wuxuu leeyahay maartay waa arkaysan hadda dad fara badan oo maartay maxay muslimiinta waxa caalamul islaamiga waxa laga cabaadaya meesha gaalada wadamada gaaladu ay ka cabaadahayaan dad baa islaamkii naga galahaya ay leeyihiin wadamada muslimiinta sida Masar iyo meelo fara badan oo kamid Soomaalida way ka jirtaa dad mulxidiin ah oo dhalinyaro u badan baa fara badan mulxidiin waa dadan ilaahay aaminsaneyn maqaalan akhriyay waan la yaabay inta dhalinyaro ah ee mid waliba mulxida diin ma aaminsani buu leeyahay quraan baana aaminsani dadka waa dad muslimiin ah abi waa muslim hooyadii waa muslimad walaaladii waa muslimiin wuxuu leeyahay diin ma jirto rabbi ma jiro ilaah ma jiro hana lugeynina waa fitnada shubahaadka waxba istusin haya niman baa maartay falsafada maada falsafa la yiraahdo oo caalamka laga dhigana maadooyinka waxay ka mid tahay shubahaadka keena ee musiibada keena ka mid tahay caalamul islaam jaamacadaha lagu dhigaa falsafaduna waxa weey in laga shaki geliyo la yiraahdo ilaah ma jira horta koonkan ilaah miyaa jira quraanku waa kitaabu nabi maxamed alifay yaa keenay nabi maxamed nabi waa sheeka noocaas hadda way ku soo badatay wadamada muslimiinta khaasatan wadanka masaarida aad baa looga cabaadahaya sacuudiga sidoo kaleeto dadka mulxidiinta aad bay ugu soo badanayaan aad bay ugu badanayaan waxyaabaha keenayna waxa kamida tarafka keenay qaybo badan tarafka kamida qaybo musiibooyin ku yimid way jiraan laakiin inta badan tarafka sacuudiga oo kaleeto markay xoolo heleen lacag ka dhargeen maarta waraabeen biyo cabeen noolaadeen ilaahay dulmi ka qaaday maarta abaarta ka dul qaaday iyo saxari ay ku jireen markaas waxay keeneen tarafkaasi inuu ruuxi wax barashadii laga maarta maxay lagu soo koobo diinta barashadeeda ku yaraato kadibna ay mulxidiintu ku bataan farabatay marka kaasna waxa sabab u ah koo waxa ka iimaanka oo maarta maxay liita iyo maarta cilmi la'aan ayaa keenta iyo hawo ruuxu hawadiisa iska caabuda hawadiisa ayuu caabudahayaa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ba ilaahi subhanahu wa ta'ala yani mar raacayaan wax iyagu maleeyaan naftoodu wuxuu jecel yahay ayuu rabaa inuu raaco wax kala ma ardo shaqo kuma laha إلهي وقرآن كيسا وحكوليه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إلى الله سبحانه وتعالى ليه. نبي داود بقى لو قد هيا وضدك كلا حكم ليه وهو ذا الراعي له ونبي إلهي سوء مار صدره رسول مرسل أوي محاضر ملاين سامر كضدك كلا محاضر ملاين سام خطر بدن baa ku jirta meeshaas waxay keentaa gaalnimo saan sheegnay nifaaq bay keentaa dadkan had ilmaaniyiinta leeyahay waxa maarday maxay ahayd ay keenaysaa musiibooyinka ay keenaysaa kamid tahay hawadaas ruuxu in hawadiisa raaco musiibada hadda Soomaaliya yani waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah oo maqasheen oo maarday maxay ka akhrideen maarday maxay ahayd calaamaadka iyo maarday maxay ahayd warbaahinta aad ka akhrideen Soomaaliya hatta in la soo darxiyay wala fiirsada in la soo darxiyo Soomaaliya nin iyo laba nin hays gursaan yani in bal fiiriya yani mushkiladu baarlamaanku ama ha aqbala ama yuna aqbalin laakiin in Soomaaliya oo dad muslimiin ah oo wadan islaama oo gaal lagu ogeyn wax un qarsanaya mooyaan kristaan Soomaaliya lagu arka aad ba u yaraayeen
dadkii noocaha in la soo darxiyo oo la keenaba laba nin hays guursadaan oo khaniisiin laga doodo xuquuq bay leeyihiin laga doodo mushkilo weeyaan yani waxay ku tusinaysaa fitantu heerka gaadho weey waddanka waa laga dooday waan ognahay South Africa lana waddan gaalaad weey Mareykankii waa laga doodaa meelaha qaar loo ogolaaday way jiraan qaaran ogolaaday way jiraan laakiin in Soomaaliya la keeno Soomaaliya in la keeno waa musiibo weey waa musiibo waxay ku tusinaysaa hawo nimankaas baa meel ka yimid rag maartay aqoonta soo qaatay baa waxeeyay rag iyagu waxaan dansan baa yimid waxba lama aha diin iyo akhlaaq iyo waxba toona iyaga lama aha marka ay kamid tahay khatarta ay leedahay ay kamid tahay waxa kale maartay khatarteeda kamida ruuxu ahlu bid'a dadka ahlu bid'a la yiraahdo kitaabka iyo sunnada in la raacay ahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man hadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa warad hadithki sahih bukhari muslim ku sugnaa maartay cidii waxaan diintana kamida soo keenta waa la radinaya ninkii hawadiisu iska jeclaan haya nin baa wuxuu leeyahay qabriga waa la barakaysan karaa maxaa qabriga uma barakaysan haya anu waan ag fadhiisan haya oo ducada hadaad ku ducaysid masaaj ku ducaysatid iyo meelaha lagu cibaadaysto maxaa maya waa qabriga sheekh weeyaan uu barakay woo sii wadi marka dambe muxuu keeni kolka hore dadka wuxuu ka dhaadhicinaya in maartay maxay ahayday waa uu nin saalix u ahaa waan ku ag ducaysanaynaa intaasu keenaya marka dambe waxay noqonaysaa in qabrigana roobka ina siiyo leeyahay qabrigan ayaa roobka ina siiyo leeyahay qabrigan ayaa caafimaadka ina siiyo leeyahay sheekh heel ba caafimaadka keena leeyahay in isagii marka shirku hada halka shirku ka yimaado musiimooyinka fitnatu shubahat bay kamid tahay wuxuuna ku gula doodayaa waxaad aragteen baa laga yaabaa aad maqasheen bid'a hasana inaad maqasheen bid'a hasana rasuulku sallallahu alayhi wasallam kullu bid'atin dalalah bid'a oo dhan waa dalaal wax alla waxaan diinteena kamid ahayna waa la radin buu yiri markaas waxa ma bid'a hasana way waxyaabo badan bid'a hasana loo keenan iyo ogtiin mawlid noqotaya meel kale noqotaya waxyaabo fara badan baa loo keenan ogtiin oo maartay fara badan waxa step by step u soo qaadaysa talaabo socoto marka dambe shirkiga u weyn bay ku tuuraysaa waxa laga badbaadayaa diinta gadaalna waan ka sheegi doonaa in rasuulka oo la raaco rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la raaco iyo shariicada la isku xukumo rasuulka oo la raaco iyo diin maartay maxay ahayd shariicada la isku xukumo wuxuu leeyahay xadiis miqdaad ibn al-aswad uu warinayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay miqdaad ibn ma'di karib baa warinaya rasuulillah sallallahu qaal ala inni utiitu al-kitaba wa mithluhu ma'ahu waxa la isii kitaabka iyo wax isaga lamida oo la socda waa sunnada rabiga waxa laga yaabaa buudi nin dhargay oo sariirtiisa ku seexday inuu yiraahdo quraanka qaata waxa quraanka ka heshaana raac oo xalaashada waxaad ka weydaana faraha ka qaado tii way joogtaa hadda oo qolyo quraaniyiin la yiraahdana way jiraan oo Pakistan meelaha ku nool iyagu oo yiraahdo quraanku ma raacayna kuwa kale oo wax alla wixii sunnada rasuulka diidahaya quraaniyiin baa nahay malaha waxa alla wixii sunnada xagga u dhuftay yiraahda iyaguna way jiraan ujeedaduna waxa weeye kolka hore ahadiithta tuura marka ahadiithta tuurtaan kadibna quraanka tuura qoliyaas inta badan niman cilmaaniyiin ay u badan yihiin oo wadada soo qaada qoliyan quraaniyiinta liyaadana iyagana shubahaad ayaa la yimaadaan marka wuxuu leeyahay quraanka waxaad ka heshaan raaca tayib quraanka salaad baa lagu sheegay xageebad ku aragteen quraanka salaad duhur oo afar hal tukada la yiri salaad maartay maxay subax oo laba hal tukada la yiri maghrib oo la yiri saddex hal tukado isha afar asar afar xagee lagu sheegay lama sheegin quraanka kama hadlin rasuulka bayaamiye sallallahu alayhi wasallam idan rasuulka sunnadiisu waa muttabac in la raaco markii rasuulka sideedana qaata ruuxii rasuulka raaca sallallahu alayhi wasallam ruuxaas uu badbaadaya adduun aakhira uu badbaadaya shubahaad buu ka badbaadaya shirki buu ka badbaadaya xumaan buu ka badbaadaya wanaag oo dhan buu raacaya laakiin ninkii wadada rasuulka ka leexda kaas waa haagsamayaa حديث كانوا الروايات مارد محيسي عدينا وحول رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كوديري لكن محل شاهد كان كسو قدانينا الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا حرمي مثل ما حرم الله وحي امارت الهي حرمي وكلا ويا وحي رسول الهي حرمي وكلا قالوا لم يدي ايات القران كانوا قرانيسان من يطيع الرسول فقد اطاع الله روحي الرسول كاطيعه الهي واطيعه واطيعوا الله واطيعوا الرسول
إلهي الرسول كيسا أضيع إلى إلهي سبحانه وتعالى عليه لأن رسولكم محوك عنونينيا محوك تسنيا ليس من جيبه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ورسولك الشيء هيو ووحي إلهي تاسوا فتنة الشبهات وانا تأو خطرسن قال لماذا كنتوي وحاجرتا وفتنة النوع على بعض ايتاي فتنة الشهوات وشهوة شهوة حاليا وحي نفط دونتا لي هذا في عربي مركي اللي هذا شهوة اشتهى بكتم اشتهى يشتهي ويانو وروح الروح ودونوي وحاسي انت النقوية العقل نقطها مارت شهوة كلا مارت دينعا كلا نقطها وحاسو دن شهوة لي هذا وانا مارت محايا هيدي تأوغو فربضان ادونك قيبا بدن كخرجتي كميتاي وحوي مالك او لوغ فيدنوبا كميدا دمرك او لوغ فيدنوبا كميدا مناسبتا iyo maartay darajaadka noo kamida زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام وحلقها الله يا وحيابها لوغ فيدنوبا maxaa looga bilaabay oo haweenka lagu fitnooba ayaa loo yiri haweenku waxay ka mid tahay maarada waxyaabaha lagu fitnooba ee raggu ku fitnooba waxyaabaha ugu daran adduunka saad ogtihiin qolyahan iska daa maarada maxay baashi adduunka rag baa hogaamiya hogaanka inta badan rag baa haya waa shay macruufa iyagu rag iyo haween way siman yihiin iyo baashi ay yiraahdaan waa la siman yahay ilaahay agtiisa waa la siman inaag ramagu inta Allah taqaakum way laakiin adduunka markii la joogo rag iyo haweenka qolaba wixii bay leedahay ninka ragga hadii ilmaha yarka ahay la yiraahdo nafta qabanaysa hooyadu laakiin 3 5 6 7 8 ilmood baa haysa wax dhiban ma aragto laakiin hal ilma hadii laga tago ninka ragga waa nafta qabanaysa maamadan hadii la maanta maarad halkan baawurka cayriyo maarad boonaga tago ka soo noqo caaw hadan xagga u gooro hada u gooro hag leeyahay ma awoodo marka way kala leeyihiin taas marka inta badan fitnada inta badan waxa la fitnayana ragga ugu badan fitnadaas haweenka lagu fitnooba maalka lagu fitnooba wuxuu u dhimanayaa habeen iyo maalin u soo jeeda oo u ordahaya inuu xoolo sameeyo waxa laga yaabaa xoolihii inuusan ka raaxaysaninba hatta uusan cunin hatta uusan raashin ka cunin hatta dar fiican uusan ka xidhanin kaba fiican uusan ka gashanin waa ordahaya isma oga maal dhali soo dhalinaya maalinka dambe qab salaadii bay ka tagsiinaysaa oo soonkii bay ka tagsiinaysaa oo xoolo raadin baa wax daacadii ilaahay oo dhan ka fogeynaysa haweenkuna waa la mid qaar badan ma maarta maxay ahayd meel badan u galaya maarta maxay min ajli maal inay helaan waxay ka mid tahay maalkuna waxyaabaha ugu daran ee hadda lagu fitnooba ay ka mid tahay manaasibtuna waa sidaas oo kaleeto adduunka waxa la isu halaagayo ya waxa way wiil iyo aabihi ay isu dilayaan mansab isu dilayaan nin baa aabihi afgambiya wiil baa aabihi afgambiya aaba wiilkiisa dilahaya kulli waxay isu dilayaan adigu aad madax noqotid marka inta saddexda qodob waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka loogu fidnoobo ee shahawaadka ay ka mid tahay maxaa yeelay waa la jecel yahay mansabka ninka maartay madaxtinimada waxyaabaha loogu jecel yahay ka madaxtinimada ka mid tahay sheekh kaana Allah yarhamu wuxuu dhigi jiray waxa la yiraahdaa buu yiri waxa maartay ruuxu u hilmaamo waxa ugu dambeeya madaxtinimada leeyahay madaxtinimada ayaa ugu dambeeyay qolka hore wuxuu hilmaamaya ilmuhu hilmaamaya maalku hilmaami ilmihi buu hilmaami zawjadii buu hilmaami waa markay naftu qabato madaxtinimada ugu dambeynaysa madaxtinimada waxa weeye waxyaabo gooni ay wadataa aragti iyo sumcad iyo maartay ninka markuu madax yahay la hareer ordayo aragtay sawirada lagu qabanayo la garab ordahayo waxa soo dhan waxay ka mid tahay fitnatu shahawaad bay ka mid tahay waxayna keenaysaa waxa keenahay waxa weeye macasiyada oo farabadata iyo adduunyo jacayl baa kowka oo qalbiga markii adduunyada ay ruux qalbiga ka gasho oo qalbiga ay ku dheeraato waxa weeye waxa badan haya inuu jeclaado waxyaabaha hawada ee shahawaadka maal haday tahay dumar haday tahay mansab haday tahay waxa soo dhan oo u hilmaamo aakhiro iyo maarta xisaab u hilmaamo waxa iyadu waxyaabaha ku sii durkiyo ku sii ruuxa kamida waxa kamida wixii mubaahaadka ah laftigiisa aad ku xadgudubtid haddaad uun tiraahdid wixii macaan ee jeceshahay ba uun hadaad tiraahdid maalinba meel bay ku sii gudbin
bal waxaana tijaabi waxaana maqaayad hebla maanta raashin laga soo gado maqaayad hebla laga soo gado maqaayad hebla ka fiiri halwe hebla maal hebla kan fiiri waxa uu mubaahaadkaas waxyaabaha jeceshahay waxyaabaha haweenkaad maarad ku fidnaysay waxa kamida diikoorada maarad guriga oo la qurxiyo oo zaid loo qurxiyo hadiya jeer waxay keenaysaa in maarad iftitaan ay timaado maanta maarad maxay gogashi maarad bedel hadana mid kala soo gad hadana mid kala soo gal guriga waxa bakaaran inta soo maarad maxay goobaad bakaaran inta soo shay baa yaala maarad yaani si marka dib hatta haday sadaqaysan waxa ahaan lay maarad kii hore oo yaala sariitan bedel oo damaal bax dhowr bilood ma lagu saxaal sana lagu saxaal ma gaarin be ma matana la bedelo kan hal la keeno kana badan hal la bedelo soo kuraasin hal la bedelo waa nooc maladaadka oo lagu xadeerada kamid ah waxyaabaha marka kullama aad waxyaabaha mubaahaadka ku sii xadgudubtana kullama shahawaadku ay ku sii furmaan markay ku sii furmaan ba shaydaanku ka hore talaabada mubaaha uu kugu day marka mubaaha aad ku sii fogaatid marka dambe dawgii kaleeto ayuu kugu tuuraya dawgii kaleeto ayuu kugu tuuraya oo ninkaaga markaad maanta tiraahdo dharkan iga bedel oo hadana tiraahdo baritoole iga bedel maar sariirtan iga bedel oo gurigan iga bedel oo guriga aad lahaydeen maanta baxaa saaraa maarta mutuneel baa saaraay mutuneelkan hal la jabiyo mutuneel kale ka casirsan baa soo baxay la bedel la yiraahdo dan ninkii lacag inuu waaya dhici karta marka waxa dhici karta shirkad uu shaqeynayay inuu xoolo soo xado inuu xoolo soo dhaco inuu xoolo xaraam ilmihi ku quudiyo inay baashi sida ku socoto meel xun tagtaa dhici karta musiibooyinka ay shahawaadku keenaan bay kamid tahay فساد فربضان أيه كنتا فساد فربضان أيه كنتا وحياها فساد كإنه هيا هذا وقت كان حاضر فتنة الشهوات كقيب قاتا أوبا وحكمدا وسائل الإعلام وسائل الإعلام كان أيون هذا استعماله هديت هاي مارد محيا هيدا خطوط الاستعمال هديت هاي واتساب الاستعمال هيو هديت هاي الفيسبوك هذا الشيء ان مارد محيا انترنت كان نوعيس انواع سفرها بدن دن اسكو سو wada waxyaabaha ka qayb qaatay ay kamid tahay musiibooyinka jira ee ugu badan in halaagtay kamid tahay bal koow horta qaflay ku keen غفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن القرآن وعن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله وعن عيالك حتى عيالك كاغينا المدب كينسا عيالك كاغينا المنت مركات مارد مالي هبله ما انا فايب هلكن كالا سو هذا الشيء وجواب ما نعدي هلكن كالا سو جواب كن وجواب تن وجواب بلد فيسبوك ما سو قال فيري ما تويتر ما سو قال فيري كان انت هتكون مشغول شدها المها ويجاجسين مرو ما هيس طفيعان وتصيصيا الماء انا سيت هذا اما نيبك كبدل هذا gabadhaas waa fiicanba hadii kala sariir bay ku seexanaysaa saas oo fiirsanaysa ilmihi baa isku xaaray uu isku rafaaday ma oga uu gaajaysan yahay lama socoto yani waxyaabo kale inta marka waa inaha intaasi waa inaha sahlan yaa intaasi waa inaha sahlan way way si socon oo waxay noqonaysaa in lala sheekaysto rag lala sheekaysto naag la qabo oo nin kale la sheekaysanaysa balka warmo markay sii socotana maxay keenan sawirkaaga ay tusin u yiraahdo sawirkaaga ay tus markuu yiraahdana xoogaa balaabta iifur soo wad waxa laga yaabaa tiraahdaan ma ina dhicinayto way dhacdo ogtiin in wax badan ba ogtiin su'aasha culimada la weydiina kamid ah nin baa maarad maxay ahayd magaalada Jirigan loo joogo culimada markii inoo iman jirtay buu weydiiyay islaanteedu saasay samaysay nin bay la kulantay in kastoo kulan kala dhicin laakiin jirkeeda meelayna tusin ma jirtay buu leeyahay بالله عليكم فيري ووسائل الإعلام وحين نقص ما يسوي مصيبة أي نوع كأنتي أي كم تاوي فتنة مركب وحي تم كم بدين وحياها هاسي وحياها فتنة قيب قادم أي كم تاوي مارد ما أي نوع كأن بكم تاوي فتنة وين وين إنه هايو مارد إنترنتكو مارد إنه هايو وكم بدين إنترنتكو حياها وين فتنة إنه وحنا لا يابي تري واجي أن waxaan xusuustaa 91 iyo 92 yaa waxaan joogay Saudi Arabia ilaa 95 waagaas internet ma soo bixin maxay xataa Saudi kama jirin maxay ahayd mobile kama jirin waxa jiray bahal pager la yiraahdo oo markaad ruuxa maartay maxay aad rabtid inuu ku ogaado oo jeebka lagu wato oo intii la garaaco numberkiisa ruuxa numberkiisa garaacay markaas ku dhici waxa soo bixi numberkaaga soo bixi markaas dib ku soo wici waa ruuxa soo wacleedahay marka culimadii waaga joogtay waxa ay uga jireen albath almubashir waxa la yiraahdo
internetka iyo aad uga hadli jireen oo lagu celcelin jiray oo aad looga hadli jiray oo risaa'il laga qoray oo aad looga hadli jiray waan yaabi jiro culimada khuduurada ay ka digayso maxay tahay laakiin markay soo baxday soo badatay yaan waxay culimadu ka hadli jireen inay sax tahay ay soo baxday waxay sax tahay ayaa soo baxday waagaas sacuudiga waxa aad looga cabaadi jiray waxa la yiraahdo telefoon oo mucaakis la yiraahdo المعاكسة اللي جري تلفون قبل ما أنت كل نمبر بيجراعي هذا مارت حوا قولي بيجوكتا سي مارت وجراعي مركز ذنبه مارت محيد وحي جلسة إنين أي لهذا الشو نين كاس الدور لهذا الشو خلاص أما كويل كأجراعي هذا قبل لهذا الشو قبل ده هذا كقبته هذا يد كوكولا يسوي سكدبين هذا ينا كوكولا هنا هيه برش حالك كبل عونيس مركز مارت مصيبين دعي oo maartay qisas fara badan oo hadda maartay waan ka sheekaynaynaa maartay qaar xataa dil iyo kufsi iyo waxyaabo fara badan keenay ayaa Sacuudiga ka dhashay waa kaliya ogow hadda telefoon la garaacay ee mucaakasa weey hadda de way ka tagtood maartay maxay toos baaba maartay loo wada sheekaysanaya marka musiibooyinka fitnooyinka shahawaadka ee yimid bay ka mid tahay ilaahay waa wuxuu quraan ku leeyahay dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasaba aydi an-nas ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بالله سبحانه وتعالى فساد كبا برقة بدا كفاسي مار بدا هي برقة كظاهري ما حيكون ظاهرته سببه بما كسبت أيدي الناس dadku waxay kasbadeen waa waxay shaqaysteen ay leeyimaadeen waxa imanaya musiibooyin wada ogtiin Soomaaliya oo gobolkan ku dhalanay kamida ad ogtiin waxa soo martay abaar dheer baa soo martay abaar dheer ba inta Soomaalidu degto dhan haysay meel kasta abaartaasi way waxaysantay bugi roobki daayna roob aasha ma noqon meelaha qaarkood ilaahay subhanahu wa ta'ala dayrti hadda oo dabayaaqada dayrta lagu jiro ayaa ilaahay u nimceeyay oo roob far badan keenay abaarta ummad badan baa ku halaagsantay xoolo badan baa ku halaagsamay dib far badan baa dhacay هذا مركي اللي جت سودوجي إلا وحية إلا نورانا الحمد لله هذا أنا محايمد أي حبة صومالي هايست أي حبة الوصل ذي أي حو من المصائب الكبار بكمية هذا ما يروى العنية والله عنية اللي ليه هيبقى مارتي اللي شيء هي عني تانكو سد مالي لكن حد كل عني بقى إن ده عني بقى مارتي واحد عنا واحد يروياني أي حوار ركتين مركو جوره هيو وجوجي وماجوجوي marka meeshu ku dagay ee qoyan ee maartay cagaar leh daqaa'iq buu wuxuu kaga dhig galgelin ayuu kaga dhig marka musiibooyinka kamita ayuhu musiibooyinka umada ku dhacday kamid haduu reer ku soo dagana hawshaas waxay keenaysaa hada reerka laftigiisa arki waayo oo dadkii maartay meel walba uu ku dago oo raashin la kirsan waayo sidii ku dhacday reer maartay maxay qoom fircawn oo kaleeto مصائب تكملها مركا إلهي وحوله ليذيقهم بعض الذي عملوا كل قد ما بعض با إلهي كعبر بد قيبت أي عصميستين يا أبارتن يا مصيبوين كان يا فضيانات كان وبيجا مارت بحي بلدوين يا جوهر مارت شبه الله هوسية ما لا فرق ما كوب بحي ما كين هي وحي كين يسا لعلهم يرجعون بلين يسول الله بتان إلهي أطوبت كيانان سومالي مصيبة هايزته وروين إسليني ورمصيبة دعضي وردد بالهلاقي ورقبنا الله كفصدي ورعرني بالواحد قدبي ورأمت بالقحيي وروحا صورنا بعد دعاي عينو طوبت كينا ميالي ولي وحق أمت طوان طوبت كينا يلي لما هي إذن مصيبة دي ويسيس عطا قرحا حمر كدعاي بياش معها وواحد لك كسبضي لكن ما الله توبت كان مصيبين كان دعيا وامتحان رباني واترا لكن وحي لك كسبضين واترا لعلهم يرجعون من نقطة إلهي من الله مني مركب حويان إن مارد محا إلهي الله لابطو وعظمة إلهي للدريمو وإلهي لوينيو وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إلهي عظمة ديسا إيا وينان ديسا إلا التعظيميو أيام مهمة هذا ما هذا يفتان تاسد لعضو محا قفك مسلم كأه لغا ربا قفك مسلم كأه محا لغا ربا إنو قبطو مركي مصيبة ساس أول لعضو
tallaabooyinka la rabo inuu qaado maxay ka mid tahay tallaabooyinkaas aynu wax iska taabanaynaa insha Allah wax iska xusuusinaynaa si loo badbaado tallaabooyin kow waxaa ka maada الاعتصام بالكتاب والسنة سينو سو شيغنay كتابك إلهي سنة رسولك إلا قبصه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم بإله الله سبحانه وتعالى له نينكي مارد كتابك إلهي مارد عسكره والله حقي وعرره وكتابك الله قبصده فقد هدي إلى صراط مستقيم بالله إليه سبحانه وتعالى له إذا كل هو الرئيس كتابك إيه السنة إن الله بتوي وحاك الله قلبك الله ماذا يهي إن إلهي عبسديس اللازمه قلوبتنا الله كويناده إلهي عبسديس أين بضينه حديث رسولك صلى الله عليه وسلم يا باجر العبادة في الهرج كهجرة إلي ورسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان مسلم باوريني ما أرد محايا هيدي وقتك أي دلك يقلبك يفتنت تشوكته وإلهي لعابده وحي لم تاي أنيق أو حق لو سو جرودو رسولك لو سو جرودو أي لم تاي رسولك صلى الله عليه وسلم وإن مركز تقوى إلهي لبضيو عبسد لبضيو ويان طلبات صدحات وحوية إن دعاء لبضيو رسولك صلى الله عليه وسلم حوليه تعوذوا بالله من الفتن إلهي كما انقضى مارت فتوينك ما ظهر منها وما بطن وحي مارت محايا هيدا المغضى إيه وحي قرصون بإلهي كما انقضى حديث كاسم مسلم أورين من حديث معقل بن يسار وحوي مارد إلهي إن لقمان قالوا فتنوينك فتنة الشهوات هالنقطة فتنة الشبهات هالنقطة فتنة القتل هالنقطة فتنوينك إلهي إن لقمان قالوا أبارت وفتنو مصيبة مارد بيها إيو مارد معي الرواب كان ليسكوها لقا وفتنو دادك أو دين تود لقا شكسية وفتنو زينة إيا خمر إيا حمان تفافتا وفتنو فتنوينك سودن وحلو بهن يهي إن إلهي لقمان قالوا أدعاء البضيوي إذا مركا دعاء سنة أظن نفتح أدعاء عيالك أدعاء زوجك أدعاء أهلك أدعاء آبها إيهو يدا كل اللي أدعاء حضيد انتين أدعاء أو إله قبرك أو نوري أو إله أن حارسده رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولي بهالك والدك أن ذل استاجي والدك حلبان إذين شيء والدك دعاديس وحيابها إليه حال مدو كمدا إذين شيء والدك الروح أدعيا ولد صالح روحي والدك أدعيا ولد صالح محايا الرسول صلى الله عليه وسلم حول إذا مات الإنسان انقطع عمله بول هدو إنسان كدنتو عمل كيس وقعي إلا من ثلاث صدح بويان وهكذا ولد صالح يدعو له ilmo wanaagsan oo ka tagay oo duceeyo way marka ka ducada waalidka xusuusan waa ruux wanaagsan way hadaad waalidka xusuusan weydid hadaad waalidka u ducayn weydid waxba si ka ah dib isugu noqo adiga aan ducaysanaynin ruuxi ducaysa waalidku buu xusuusan marka ruuxa aan isagu ducaysanin taynu saalixiin baa laga yaabo waalidku ruuxan u ducaynina saalix isna ma si aan marka inaad saalix tahay u ogaatid waalidka ducada u bad marka ducada hala badiyo ummadda muslimiinta loo duceeyo fitanta ilaahay ka dulqaado abaarta ilaahay ka dulqaado musiibooyinka ilaahay ka dulqaado khayr ilaahay siiyo xaqa ilaahay ku hanuuniyo ducada hala badiyo waxa kamida markii aad maartay mas'ala aragtid dad baa maartay maxay hadda waxa aragtihiin dad baa jihaad baan qaadaynaa yiraahda kana sameeynaa bay yiraahdaan qolaa kula boodi هنا كورتين هنا ديدين هنا لا دغاله هنا راعن كل كور اوغو ورت روح من ku socda dad waxa arkaysa laga yaabo inuu wadaad dur haya aragtay hal la boodin wadaad kaliya kan weeyaan hadhiin horta bal ogow muxuu ka hadlayo muxuu wadaad ku canaanaya muxuu dad ku daraabaya dad baa qolo canaanaysa ama dagaalamaysa maxay ku dagaalamayaan bal horta ogow ha ku degdegin marka at-ta'ammul iyo xaaladu siday tahay iyo fitantu noocay u socoto iyo meeshay u jeedo bal horta ogow oo dhuux marka dhuuxid kadib culimada la soo laabo waxa kamida jamaacada muslimiinta inaad laazimtid oodan gooni noqonin jamaacada muslimiintu waate jamaacada muslimiinta inta xaq haysata weeyaan
ruuxii xaq haysta ee kitaabka iyo sunnada ku soco garabkiisa noqo garabkiisa noqo haddii ay dowlad islaama jirtana dowladda islaamka alla jira ha ka fogaana waxaa ka mid a waxyaabaha mawaaqifta laga rabo qofka muslima inuu qaato inuu meelaha fitnadu ay ka jirta ka dheeraado fitna lagu sheegay soo maaha dadku waxay ka sheeganayaan fitnadaasi iskaga dheeraada ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ha la boodin ree hebel iyo ree hebel baa isku dhacay ha la boodin ha hor ordin hebliya heblaa isdagaalay ha hor ordin yaa heblaa gabar daran warba uma haysday ha ku dagaalamin xaggana wax laga sheegay ha sii hor ordin bal horta sug fitanta meesha laga sheegay inaga Soomaaliya durmeel ka dhaco ruux walba wuxuu doonay inuu ordo oo soo ogaado ayr guriga iska laazim isaga ku imo warka ilaahay heshidna dhinacana aan raacin fitna aan kugu fitantana ha ka mid noqonin waxa maartay maxay Imraan ibn Husayn oo rasuulka warinay sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ninkii dajaal maqana dajaal awarkaad maqasheen ninkii dhaqna ha ka dheeraada buu nin baa u imanaya buu isagoo malaynaya inuu mu'min yahay marka sidoo ula joogo markuu arka waxa uu haysto ee shubhooyinka uu wato yuu raacaya buu dajaal muxuu sheegay ilaah baan ahay buu leeyahay dajaal ilaah baan ahay buu leeyahay laakiin waa musiibo la soo diray way sharka ugu weyn weeyaan rasuulkuna uu inooga digay dajaal muxuu keenayaa roob cirku soo daadii uu soo di wala fiirso wabiyaal buu meesha ka dalaacay wabiyaal baa dilaacay janniya naar buu wataa dadkii quburaha ku jiray soo kaakacay soo kaakacay waxa hadii leena tusmaxad malaynaysan oo lugu aabaha meesha soo kaxay barow oo soo kaco oo wabi maarta meesha wabiina ka dilaacay dilaac soo ilaahay ma ihi ku yiraahdo hada qolaa maarta wadaad fiiri Soomaalida hadda maxay ku raacaan wadaad xoogaa jimin iyo adeegsada yaa wuxuu leeyahay magacaaga soo hebel hada jidka magaciisa soo maqlay markaas magacaaga soo hebel lama oran jirin in hebel soo lagu ma yiraahdo soo halka misigta laga ma hayo saaya soo maaha markaas waa wali ilaah wax walba uu og yahay ma inaan u sheegaad moodi saaya soo yiri marka dajaal oo waxa siideyn hadii uu soo yimaado maxaa maaysan ujeedada laga leeyahay waxa weeye fitanta markaad meel fitan ku maqashid iskaga dheero waxa laga yaabaa inaad sida hor waxaan ima dhibahaye internetka hadda waxyaabaha xun fiirsatid ama aad sheekada waan iskaga sheekaynahay ninkan muxuu sheegano waan madadaalinayaa waan ku dheeldheelaysaa ugu dheeldheelaysaa inaad raacid baa dhici karta musiibo abkay dawladdu wadan normal sudaha baa rag ku takhasusay baa jira haweenka inuu sheekayaan ay dhumiyaan marka inuu maartay adu kolka hore sheekaynata khalaas musiibo ka dhacda meesha dhici karta fitnooyinka meelaha lagu sheeka dheero waxa kamid ah markii fitnooyin la sheego in la kaadsado oo la sugo maxaa dhacay reer hebel was dagaalay balorta aan ogaano yaa gardaran yaa waxaysan hebla is dagaalay aan ogaano ka digtoono ha ku degdegin yaa ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu ilayhi subhanahu wa ta'ala haduu mid faasiq waridin la yimaado war suga oo warka ka horta hela oo sugta baa la yiraahdo ku degdegine kala cadaysta waxa qajiriye kala cadaysta baa la waxa kamid ah waxyaabaha mawaaqifta la rabo waxa kamid ah culimada oo loo laabto culimada oo dhan maaha culimada rabbaaniyiinta xaq inay ku socdaan ad garanaysaan ee kitaabka iyo sunnada ka hadlaaya la rabaa culimada la rabaa ka weeyaan nin aad isleedahay caalim ah oo ku ogtahay khayr iyo sunna aad ku ogtahay u laabo oo wax weydii taana waxay kamid tahay in lagu badbaado oo uu kaaga digo uu ku yiraahdo waxaan ka dheeraado war waxaan musiiba ka soo socotay ka dheeraado waqtigan saamaxayna misaal badan baan keeni lahayn oo ay keentay oo ay maartay waqtigii saxaabada dhacay oo waqtigii taabiciinta dhacay iyo kuwa Soomaalida ka dhacay idan culimada in loo laabto waa muhiim lagana tala qaato laga qaato waa muhiim waxa kamid ah markay fitnadu timaado in la sabro sabrku waa muhiim وانا موضوع قوني وين وآد مهم وين إلهي بقى رسولك كله فاصبر كما صبروا للعزم يعني صبر بالله صبر بالله دار ما يعني محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر إنه وعد الله حق بإله سبحانه وتعالى إلهي وعده سوى حقه صبر بالله
idan markay fitno yimaadaan sabirkan waxaa ka mid ah markii dhib dhaco in la sabraa ka mid ah waxaa ka mid ah macsida oo laga sabraa ka mid ah waxaa ka mid ah daacada oo lagu sabro masaajidka inaad timaadid shaydaanku maxaad ka aadi maxaad ka soo faa'iiday wadaad hadal yidhi maxaad ka soo inuu kala yeelo kitaab quraan oo saaka u akhriya maska kitaabka quraanka wuxuu isku dayay shaydaanku inuu ka hor istaago salaada subax alayka laylu dawiilun farqud buu kuleeyahay waxaad u baahan tahay inaad cazimo yeelatid oo kacdid oo ilaahay darti baan u kicid a'uudu billahi minash shaitani rajiim adkaarti aad akhriid si aan nashiid u noqdo quraan oo ruux muslimaad u noqoto waxa kamid ah sababaha ummadu ay ku badbaadayso in la sameeyo oo waxa kamid ah fitnooyinka dadka in looga digo ayaa kamid ah hadday fitna jirto fitnadaas nooc doon ma noqdo ama tii aan ka sheekeynay social media Soomaaliya dagaalaysa ha noqoto ama kuwan iscaaya ha noqoto ama ruuxa isku waxaysanta ha noqoto sababaha lagu badbaadiyo in la dhimaatay hadda laba qof aad dhexdhexaadisid oo wanaag ka dhex beertid wanaag badan baad helaysaa khayr badan baad ummadda u tartay haddii aad dad musiibaysan oo dhibaato ku dhacday aad shilin ku bixisidna wax badan baad u tartay ruuxaad dhaantid diinta aad wax ku dhaantid haddaad kelmadu sheegtidna wax badan baad tartay dad haddaad tiraahdo salaada soomo amal iyadoo la joogo waqti salaada la joogo aan tukanno haddaad tiraahdo salaadii baa la tukatay inaad tukada waqti baa la gaaray wax weyn weeye khayr badan baa qabatay masaajidka haddaad soo socoto qaar soo bixi kara ay jiraan inakayna masaajidka suracna haddaad tiraahdo khayr badan baad qabatay wanaagaas oo dhan ayaa la qaban karaa marka asbaabaha lagu badbaadiyo ka mid waxa la iska ilaaliyo kamida muwaaqifta fitnada laga badbaadiyo waxa kamida oo ruuxa muumsiga laga rabo dadka munkarku saameeyay hala janqaadi hala soconin saaxiib ka dhigan ruux munkar wata iskaga fogow maxaa laga yaadaadan hal u raac inaad u digaysid laakiin inaad iskala sheekaysid munkarkiisa la sheegid marka dambe inuu ku duufsado halisa ama dadkii oo dhan ma munkarka galay anna waan iska geli hadhiin ummaddu haddii halaagsato ma halaagsan aduguna ka badbaado noqo وإن ليس جدّه الحذر ولبا ليس جدّه يا مهمة أو منكر كان ليس جدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم حليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث عبد الله بن عمرو إمام مسلم أورني يعني إنك منكر أرك الروح إنه بدل له باي منكر كاس للدوريو هدي هذا ودود عنكم دوري قد عنكم دوري هدي هذا أود على هينا قلبي بحضك دوري عربك وروحني وحفي عما يكبد بعدين أترى وروحني وحفي عما يكتشوف سدين أترى وروحني وحيا كدكتورنا دين أترى هدي هذا أنت أودين قلبك كنا حمانته الله حمانته هتعلان حمانته هكرر لنقانين محايل حمانته ولا كرر لنقضى حمانتي بين قشبين نقانيسا وحاكم ذا وحيابا قفك مؤمنك وقتك فتنة تقربه إنه يسكى إلى قيل وقال ولا يري وحان له بين إلا لبوذ ولا يري ساسا ليري شائعات سانا ليري دوان مركي مدلت شوغنا وحاكو صباح وحبين سكتشنا مركي هور بودنا ساسا ليري قول با مثلا روح دن له ايا قول حق الشيء مركز ساسا لها مصيبه قد جرى waxa kamida yaani gabadhii ninkeed baa la rabaa in la isku diro ninkii uu guursaday baa gabadhii baa laga masayrin inuu saxdo ka jirin baa laga yaabaa halnaba kama bajiraba hadalkii baa la bood saasa hebel uu guursaday muuf gabadhii madaxa wareeg dadkii oo dhan baa ka sheekeynaya la leeyahay hadduu 100 kitaab marana kama rumaysanaysa maxaa yeelay ummad dhan baa shaacisay شائعاتك وحيابها وحي كمدين أمد بربرية كمدين قيل وقال رسولك إنه قد صلى الله عليه وسلم وحكم وحيابها زمن الفتنة قال لك قبت بعد قفك مؤمن كان لقى رب ونكسو قبقبين وحكم ذا روح إنه رأيي سقعته أي لوين هذا أنا قاعد أسكف فلان أنا كتاب ما الله منايو سنة ما الله منايو شيخ ما الله منايو ما يدام بوان قرنا يا وحن وانا قانا عقلي بان ليهي ورهاي عقلي على هذه الدين تو maxay ka qabtaa warbadad kaaga khibrad badan baa jiray bal warayso warsay wax u jiraan bal ogow ma waan ogahay anugu
عقل بان ليه وان قرنيا سي وحو دعيا ما قرنيا ها أنا halkaas la maraya waa ruux oo maskaxdiisu ay ku filaato oo inuu culimada u laabta diida oo inuu kitaabka u laabta diida oo inuu sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam u laabta diida oo ilaana aqligaaga ugu lifan waxa kamid waxyaabahaas ahadiithu nafsi waa dadka ugu sheekaysa shaydaanku qalbiga wuxuu ku tuuraa waswaas buu ku tuuraa waswaaskaas dadka qaarkii waxay u qaataan naftiisa weynaynaysa say u weynaynayso dhab buu moodaa وحقيقه ترتع أيومودي هذا يسوي ما يسوي شيء يقول مال وكسر قاعدة لي ورك حاجات كنت بالشيك يا كويجي مركب دم بهدودي واللابتو نفتي سنة وشاك يسوي وجانية مركب وحوي وحيابها اللي جابت بعضي إن ليس كإلى عليه ما أعرف رأي جاي عيان اعتمادها هي نفط إذا وحي وشاك يسان اعتمادها هي وحيابها الله يسك إلى عليه كمية والله يا الفتنون يكوي بديهين وقت كان الشوقة فتنة داس قال لماذا الشبهات ككت ماذا فتنوينك هذا الضد كان فيري حمر هذا هو اسمه قرحنا يوكلاته محاها يا فتنة الشبهات وين نم باوتك وذات باوتك الشهيد بات هاي بوليه تد مسلمين أو مخايضة فرديو قرحنا يا هذه الشهيد بات هاي بوليه نين مسلم أو مار تد مسلمين الله يني حقيه الشهيد كله غنيا وعلم يري وجهلي ومارت الشبهات والرأي وحلو الشيء ويه وحيابها أمد هلاك كمتها فتنوين كاسوين هاي ستادي بدنا إن نوايز وذكتين فتنة الشهواتنا وابد أكتهم حديث وحلقة دقيقة ساعة لمن كي قال لها أو أقدر دكتي مهمة دودو أي نقطي الدنيا أو آخر أقونين إيه إنترنت يبلاي أي سماية بل نوزو داي إن النفط هذا أتكأت كان ويد إن النفط هذا كأت كان ويد إن الإله حسوسا ويد إن النفط هذا أي مارت كل ويناته ومصيبة ويد وحضر كيساء مصيبوين كهذا دعاية كاملة خير إسلو وينادي أو مارت إنت أصو المدسور دلي أو مارت محايا هيدي إسلا صوكري أو عاشوا يعني محايا نولاد لباتن سنة صدّن سنة لصوّد النولا أيها بربرها محو بربرها فيسبوك إنترنت يا وحلا من بربرني إما ننكبا فيسبوك إنترنت كتيرة إما ناكتها فيسبوك إنترنت كتيرة وحي مارد محي هيدي أن نيدي وحي كهلي إني مارد ويليري هلي كرتو نكان يما بقنعيه إلى ذهي ناكتي وحولي ناكتي ما قنعيسو وحيابها صدّن بعد لان هي فتنة الشهوات وحالك في علمها لك ما فكرها oo ilaahay lagama fikirayo oo aakhira lagama fikirayo oo noqosho lagama fikirayo hawa nafsi iyo shahawaad baa wada khayrki ilmahan war ilmahan inta la eg miya maanta lagu kala tagay lama dhahayo war miya la isugu dul qaadan lama dhahayo musiibooyinka in haysta kamid tahay qiila wa qaala waxa ogtiin ay gabdho badan isku dagaalaman hadal la isaga gudbiyo qiila wa qaala iyo shaa'icaadku khayr badan inay ku burburaan bad ogtiin قيل وقال أمضنا إن يسكو جيساد أكتين قيل وقال فيسبوك إيه إنترنت كوحة كسعة إيو أفلقادة إيه مصيبة كسعة إن أكتين بوبانطة حيابها صورنا في التنويان نقاط كأن شيخنا أو كتابك إلهي الله بتوجه الرأيو إلهي الله توبت كانوا أو ربي الله نقضى كم التهي إلهي النفط الله إلهي أي كم التهي علماء أو وحي كائش قال أضل النقطة أي كم التهي روح أو وحيابها الصبر إيا الدلقات إيا إناء إيا كادسية إيا التثبط إيا شيء كم تاي وحيابها سي وحي كبدي وحيابها اللي بدبادها لون باهن يعدد كان إنا نكرر عنه إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدسنا إنه فتنوينك إنك بدباديو فتنوينك شبهات كي شهوات كي من الله والله إنك بدباديو أولاد إلهي نوح حفظيو أولاد إلهي نوح حفظيو إلى أولاد الله نوح حفظيو ودن خطر أنه جوجناي أولاد هل لا تشرو هل أقعدوا أن إلهي سبحانه وتعالى هو يدسنا إنه دنبجنا ضافه كي والد كانوا نضافه كوا يسوق على المسجد دين تو كالمين ونقدقه إلهي وحقران كيس كله إن تنصروا الله ينصركم هذا إلهي وجرجارتان إلهي ودين جرجار هيا كوا إلهي وجرجار الله ينقدقه دين تكوا وجرجار الله ينقدقه كوا يسوق على المسجد الله ينقدقه شبهات كشهوات كالله ينقى إلاليو
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا كل هريه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. مساله كصابسن تصبيح لا استغفار الروح وسمي عملك روحه انه استصا ama dadka uu sheega maaha amalka uu sameeyo ruux inuu qariyo way maxay in la qariyo ikhlaas ka ayay ku ka tahay allahumma illa inuu ujeedo u kaleeyahay dadka dhiirigelin ay ka tahay haday dhiirigelin ay tahay baa laga yaabaa in la ogolaado maxay ilaahay wuxuu in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al fuqara fa huwa khayrun lakum sadaqada waa zakadi way hadaa dhaahirisaan والنعمة يوناك بالي حداد لكن قارسان بخير وزكدي اللي بحيني زكدي مركي اللي بحيني وجدوا وحوي هدي أهل الوضع إذا قال لا ضحي أما إن زكدي قال بحصي ودب له جوجو صار نقول لجاس ودوني هاي تهاي وماشي لكن وحاب عن وحافي عن إلا قرية وحلوك حديثك 7 يذلهم الله في ذله رسولك صلى الله عليه وسلم وحكم ذا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه waxa ay midigtiisu bixinaysa intayna ka ogaanin bidixdiisu marka ruuxu hadii ay ujeedadu ka tahay istustus amalkaas waa baadil waxba kama jiro man sam'a Allah ruuxi isma qashiya dadka isdaahiriya amalku intaas ku buriya shirkul asghar baa la yiraahdaa amalku buriya sida darteed waxaan ku waaninaynaa inuu san ruuxna dheen anoo maanta kumbaan kun jeer baa istighfar saday yaadu istighfar sanaysa Allah baad istighfar sayad tusaysa marka ilaahay inuu istighfar sanaysa uu goog yahay kun baa sheegay 100 kun istighfarso 100 kun subhanallah de idna ha u sheegin laakiin haday ujeedadu tahay dhiirigelin naruuru yeelanaya ruuxaas hadii ay tahay hal lagu ogaadana waa lagu ogaaday waxba ilaahay agtiisa kuma lihid نقطة واتاس مركع عملك صلاة هذا حتى صلاة هذا الصلاة زكاة هذا واحد قبسان يسد هوس وبحسه حتى هذا وحسين يسد إنه ما اللي يسويه من ضدك هكار راعان وهالوجود إذا الله ده هي مويان واحد آير هوس وبحسه كاس واحد مرت إلا قريه النقطة تاكوين كمل حلو حرو مر هدي أين أنت ما أهين mar hadii ayna timo ahayn waxba dhib male allahumma illa inay de gabadh tahay aan la qabin oo maartay maxay uga jeeda xoogaa nin ay shukaansanayso iyo nimays maartay xoogaa maartay rabta timo badan in leedahay oo nooc khayaano ay tahay taas xaraam bay noqonaysaa maxay intii dhowr masar lagu soo xiro waagi xamar waxaan xusuustaa idinku waad yareeyeen man xamar markii maartay baashi waxa jira timo weyn oo saala dhigi jiray waxa gabdho ay maartay maxay baasha ay madaxa saa u tuuri jireen marka bahal baa la xiri jiray ma aqaan waxay ku duubi jireen laakiin waxaan garanayaa madaxu inuu aad u dheeraa baan garanayaa marka noocaas oo kale haday tahay nooc khayaana ah ma banaana laakiin hatta haday ninkeeda ay soo qurxinayso oo ay ku xidhiidhato waxba dhib male ninka wixii la soo qurxiyada waa la ogol yahay waxaan ka ahayn timaha lagu badiyo oo maartay maxay ahayday waasiladii la lacnaday aan soo galaynin laakiin baashan la yiraahdo maxay ahayday lagu xidha timaha waan ku xidhaan waxba dhib male iyadu sidaada timo maaha iyadu marka haday ninkeeda iyo ahalkeeda ay ku hor xidhato waxba dhib male haddii ay maartimeeda ku adkaysanaysan dhib male waxaan kaliya taceebto imanaysa sida aan sheegnay wixii khiyaano ku imanaya amaba suuqay maraysaayo isha ku soo qabato oo timo dheer bay leedahay hal uu yiraahdo wixii noocaasan iyadana lama ogola hayr wixii isha soo jiidaya lama ogola wixii soo jiidaya lama ogola hatta timaha haweenka markay maartimahooda ay maart suuq inay soo baxaan rabaan waxa fiican in timaha maart meesha ka ay kusnaan lahaayeen in timaha hoos iyo siyaabo aan ayn u dhaahirin oo madaxeedu dadku u soo jiidanin inuu qarisaa loo baahan yahay marka laakiin taakooyinka lagu xidhaay sideedaba mar hadayna timo ahayn waslina ma noqonayso waxba dhiba male hatta culimada qaar waxay dhahaan haday dun ay ku xidhxidho dun haday ku xidhxidho timaha yaa ka gaaban gabadha timaheeda iska yar midaal ahaan marka dun bay ku xidhay waa dun caadi ama cagaar ama cadin han noqoto markaas ku badsatay waxba dhiba male baa leeyahay xayl nooc sha'r ma timo ma timo ila timo la moodi timo haday ku xidhaan qoliyaan madowga timo laga ma garanay timo caadi noqonay
marka taas haday dunku xidho oo ninka dumay intay isugu xidho ay maartay maxay xooga ay la laasay waxba dhimalayada marka taasna saasay taho waxba maartay maxay ahayday wixii muujinaya waan ka diinay wixii muujinaya suuqa markii loo soo baxay oo ishu inay soo jiidato keenaysa ama iyadoo maartay maxay nin inay isguursadaan rabta ay u tusayso khiyaano uga jeedo labada lama ogola laakiin waxan kaleeto waa iska caadi cid doonay intay doonaan ku xidhato wallahi a'lam اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين الى ذنبنا حق وذنب والدنا الله الله فندي لما الله ونحرس دي لما الله ونحرس دي لما الله ونحرس انت النور العافيه عافيه الله سي انت جنا الله عافيه انت جنا الله عافيه انت جنا الله عافيه غفر حنون بقضاء حنون كسال لا قبد بادي قفي واحد طبعا يوحد طبعا ونكسن الله وسال قفي واحد طبعا كي حرور طبعا حرورة الله وسال كي مال طبعا مالك الله وسال كي عافمات طبعا عافمات قال الله وسال إلهي سبحانه وتعالى أمورهنا ضمان الله سال أمورهنا ضمان الله سال أمورهنا ضمان الله سال انت شر الشيطان ابوه شر الله انك قبط انت شر الشيطان ابوه شر الله انك قبط اولاد الله انه بركه اولاد الله انه بركه اولاد الله انه حفظ الى اولاد انه حفظ الى اولاد انه حفظ الى الشيطان يشبه الى كبد بادي الى عافيه عفو النصي الى جنة الفردوس على كويدي سنه الى جنة الفردوس على كويدي سنه الى جنة الفردوس على كويدي سنه الى قبر النور الى قيامه هو الله شفعنا محمد صلى الله عليه وسلم الى ونغدي وحوض رسولك كعب الى ونغدي وحوض رسولك الى كعب الى ونغدي الى ذنبك انك ضاف ذنبك والدك الى ضاف دعواتك انك الى اقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين